بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا wanaagsan arday ku soo dhawaada barnaamij tababar ah oo idin soo gudbinayso Qaamuus Academy oo ka shaqeysa tababarada iyo waxbarista habka online-ka. Barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay xeeladaha loogu guuleysan karo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare. Sidaan ognahay arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad walba waxa ay ku dhacaan imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare. Sababtu ma ahan in aysan waxba aqoon kaliya, laakiin waxaa jiri kara farsamooyin badan oo ay ahayd ardadaas inay bartaan oo ay sahelin. Tababarkan marka waxaa loogu talagalay in lagu siiyo farsamooyin aad muhiim u ah oo ka saacidaya sidii aad ugu guuleysan lahayd oo dhibco wanaagsan aad uga keeni lahayd ama aad ugu tartami lahayd kaalimaha hore imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare. Tababarkan marka waa tababar aad u muhiim ah oo loogu talagalay ardada doonaysa in ay ka qayb galaan imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare. waxa aanu ku soo qaadan doonaa mawaadiic dhowr ah oo muhiim u ah ardayda doonaysa in ay barnaamijkaas ka qayb galaan. Laakiin inta aanan gelin ka hor waxaan sameynaynaa wax yar oo isbarasho ah. Isbarashadaas si kooban ayaan u sheegi doonaa. Waxay noqonaysaa academic introduction ama isbarasho la xiriirta xagga waxbarashada. طبعا magacaygu waa Xuseen Axmed Salaad, waxaan ahay Soomaali, waxaan ku dhashay Mudug, halkaas ayaan quraan ku soo bartay. Kabacdi waxaan imid magaalada Muqdisho. Waxbarashadeydii nidaamiga ahayd iyo tii sareba waxaan ku qaatay magaalada Muqdisho. Waxaan deganahay magaalada Muqdisho. Waxaan ka shaqeeyaa waxbarashada heerarkeeda kala duwan, haday tahay mid nidaamiya iyo mid kale oo mid gaar loo leeyahay iyo mid guudba. Dhinaca waxbarashada marka laga soo tago waxbarashada asaasiga ah, waxbarashadeeda sare haddii aan kor ka soo bilaabo hoos u soo socdo, waxaan PhD oo Arabic language ah ayaan waxaan ka qaatay jaamacad ku taala dalka Suudaan oo la yiraahdo Jaamicatul Budana. Sidoo kale masterka isla jaamacadaas ayaan ka sameeyay. Master labaad oo ah teaching and curriculum and teaching methodology asagana waxaan ka qaatay jaamacad la yiraahdo Jaamicatul Riyaada oo iyaduna ah jaamacad ku taala bayskeedu yahay Masar iyo wadamo kale. Bachelor degree waxaan markii koowaad ka qaatay Faculty of Education ama kulliyadda waxbarashada Jaamacadda Islaamiya ee Muqdisho. Kabacdi waxaan galay jaamacad kale oo aan ka diyaariyay bachelor labaad oo ah Bachelor Shariica wal Qaanuun Jaamacadda Plasma. Sidaas waxaan marka tacliinta sare ka ahay laba bachelor ama laba lisaanis iyo laba master iyo hal shahaado oo PhD ah. haddii aan u sii gudbo marka khibradeyda xagga waxbarasho khibradda shaqo, dabcan shaqada aan qabtay gebigeed waxay isugu imaanaysaa waxbaris iyo barasho. Shaqo kale ma aan qaban. waxaan fieldiga wax dhigista ka shaqeynayay muddo 15 sano hadda sii dhaaftay. ilaa 2016 laga soo bilaabo haddana waxaan ku shaqeynayay hormuudka kulliyadda waxbarashada oo laba jaamacadood oo magaalada ku taala Muqdisho ah. ilaa haddana aan hormuud ka ahay. Sidoo kale 2015 ilaa hadda waxaan ka shaqeynayay oo muxaadir aan ka ahaa ama lecturer ka ahaa heerka tacliinta sare ee jaamacado kala duwan. 2019 ilaa haddana waxaan ka shaqeeyaa qaybta manaahijta ee wasaaradda si oo part time ah oo aan ahayn shaqaale joogto ah. waxaan ka mid ahaa khubaradii soo qortay national curriculum-ka ama manhajka Soomaaliya textbooks-ka secondary-ga. waxaan anigu ka mid ahaa khubaradii maadada Carabiga. sidoo kale waxaan wax ka qoray textbooks-ka oo primary teacher training-ka oo asagana ay mar dhow wasaaraddu ku dabaqi doonto colleges-ka macallimiinta lagu tababaro. sidoo kale waxaan wax ka soo qoray ABE box-ka ama textbooks-ka oo qayb ka ah manhajka Soomaaliya, gaar ahaan waxbarashada asaasiga ee degdega ah. waxaan tababaro badan ka sameynay oo manhajka iyo la xiriira iyo arrimaha waxbarashada ilaa dhowr heer, haday tahay heer public ah iyo heer private ah ama heer national ah iyo heer institutional ah. 2020 wixii ka dambeeyay ilaa hadda
anigoo welina shaqadeydii ku dhex jira waxbarista ah oo meelaha kala duwan ah, waxaan haddana ku shaqeeyaa waxa la yiraahdo certified TOT ama tababarayaasha oo certified-na ah oo shahaado haysta. shahaadadaas oo aan ka haysano wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya. hal shahaadana maana dhowr shahaado ilaa ugu yaraan 10 tababar oo la xiriira barnaamijyadaas education-ka ayaan sameeyay oo heerar kala duwan iyo macallimiin iyo ardayba loo qabtay. sidoo kale waxaan wax badan ka soo shaqeeyay national exam setting ama dejinta imtixaanka qaran iyo sixidiisaba muddo ayaan ka soo shaqeynayay. kii hadda u dambeeyay oo 2021 la galay khubradii wax ka dejisay ayaan ka mid ahaa. intaas marka waa si kooban oo isbarasho ku saabsan xagga akademiga. waxaan u gudbi doonaa ubuucda tababarkeena oo ah xeeladaha ku guuleysiga imtixaanka qaran ee shahaadiga gaar ahaan qaybta dugsiga sare. marxaban bikum min jadiid. halkan waxaad uga jeedaa training contents wax la yiraahdo ama muxtawa tadriibkeena si aan marka horeba u fahamto madkhalkiisa waxyaabaha aan uga hadli doono si ogaw inta aad gudaha u gelin, because waxay ku siinaysaa inaad si ogaato waxyaabaha laga hadlayo filasho wanaagsan iyo waxani in ay si fiican kaaga sii dhaadhacaan iyo in aad ogaato stepska iyo sida loo soconayo oo aad meesha ay wax ka bilowdaan iyo meesha ku dhamaadaanba ay ku caddahay. qodobka koowaad oo la xiriira barnaamijkan, marka hore waxaan si isu xasuusinaynaa mistakes dhan by students wax la yiraahdo qaladaad ardadu ay sameeyaan. waa goorma? markay imtixaanka diyaarinayaan, markay imtixaanka ku jiraan, ka hor intaan imtixaan diyaarinta la bilaabin. qaladaadkaas waa inaad fahamtaa, waayo marka qof la rabo in la irshaadka marna bidariiqa iijaabiya wax lagu irshaadiyaa, wax lagu wacyigeliyaa, marna bidariiqa salbiya. qofka salbiyaadka maxaa loogu sheegaa in uu ka fogaado, iijaabiyaadkana waxaa loogu sheegaa in uu iltizaamo. marka qaladaadkaas intii aan khibradeena ku soo ogaanay ardada ka dhaca oo ka bacdina u horseeda in ay natiijadoodu ama hoos noqoto amaba ay dhacaan ayaan qodobkaas uga hadli doonaa haddii alla idma isku xasuusin doonaa. qodobka labaad, what's necessary to win in the exam? ma huwa daruuriyun litanjaxa fi limtixaan? waxa lagama maarmaanka ah si aad imtixaanka ugu guuleysato ayaan dhowr qodob ka sheegi doonaa. qodobka saddexaad, ciwaan aan u bixinay 4 main actions, yani alcamaliyaat al-arbaca al-asaasiya, 4 shaqo oo waaweyn oo laga rabo in ay ardadu sameeyaan si ay u noqdaan successful ama dad guuleysta ay u noqdaan. 4taas qodob maxay yihiin? reading, understanding, memorizing, time of memorizing. These 4 main actions is very necessary to win in the exam. waa aaday waxay u tahay lagama maarmaan si aad ugu guuleysato examkaaga. qodobka afraad ee ugu dambeeya waa advices ama nasaaix, talooyin at the time of the exam, xilliga imtixaanku socdo amaba uu albaabka uu joogo, talooyin lagu siinayo oo ay tahay inaad iltizaam ku samaysato. talooyinkaas haddii aad raacdo it will give you pleasure, marka dhoodii inaad ku raaxaysato shaqadaada imtixaanka ayay ku sii doontaa. marka this waa contentiga uu ka kooban yahay trainingkeenu oo aan uga hadli doono inta lecture-kan aan ku guda jirno. waxaan u gudbaynaa marka qodob inaan uga hadalno. qodobka koowaad oo ah mistakes done by students. qodobkaas ayaan marka dul istaagi doonaa. wax yar kusoo dhawaada. ardadeena marka aan eegno intii aan khibradeena ka aragnay, maadaama aan ku dhex jirno ardadii oo markay wax diyaarinayaan, markay ay wax dhiganayaan, markay imtixaan ku jiraan, mar walba aan xog ka hayno, waxyaabaha aan aragnay oo ardadu ay isticmaalaan waxaa ka mid ah qodobkan muxuu yahay? ardadeenu waxay focus ka saaraan marka ay imtixaanka u diyaar garoobayaan ama ay diyaarinayaan hal domain ama hal dhinac, hal majaal. domain waa majaal ama hal waax ama hal qayb ayay focus ka saaraan. muxuu yahay focus taasi? waa remembering, waxa la yiraahdaa tadakur. nidaamka dadka educationists-ka way yaqaanaan oo ah mustawayaadka oo aqoontu waa ilaa 6 gaarsiisan yihiin. waxa u hooseeya waxa la yiraahdaa remembering ama tadakur. ardadeenu marka waxay sameeyaan qaabka ay wax u diyaariyaan waa qaab relevant ku ah ama ku fac ah ama ku haboon qaybta u hooseysa oo ah tadakur. waxyaabo oo iska faham maskaxda in la xifdiyo kale, sida مثلا su'aalo inay xifdiyaan ah kam, maada,
متى أين wax noocaasa udkur cadid ما هي سؤال noocaas inay xifdiyaan oo badan. That's wrong. waxaa la rabaa su'aalahaaga aad xifdinaysaa in ay ka kooban yihiin 6dii heer oo sinaafatu blom ama blomis taxonomy oo ay ku jiraan su'aalo xifdis ah, su'aalo faham ah, su'aalo ah taxliil ama analysis, su'aalo ah application oo waxaan dabaq ah oo dhaqan gelin ah, su'aalo qiimeyn ah, su'aalo creation ama creativity galayo ibdaac. لكن هل قيب أياك ديارسي مثلا أنت ركزت على موضوع التذكر فقط، بعد ذاك ما حد عيمرك امتحان كينا واحد لوسو بيسقريي مجالات كلا دوان أذيك واحد ديارسنتها مرك هل كنا بالسؤالي أياك جوابي دونتا كوا كلنا وكل دونتا هدو دينا إنتان كليكم ما باسي كرتد لازم هنا هي مشكلة مرك مشكلة مرك سي أن وقف في جنانه مرك عن واحد ديارنا يسوع لا تشو معلمين تخبرات والتربويين تا أو يقانا سida امتحانka loo diyaariyo ayadoo taas laga jawaabayo qaamuus akademi ay tababarkan ku diyaarisay hadii aad ku xirnaato wax badan ayaa ka faa'iidi doontaa. haddii adigu aad sanadkan ka gudubtay dugsiga sarena waxaan kula talinayaa barnaamijkan inaad ku sii xirto ardada ka dambaysa si ay uga faa'iideystaan. labo qaladka labaad oo ardada ka dhaca, the students worry about exam. ardada markii imtixaanku soo dhawaado amaba uu form 4 gala ayaa waxa u bilaabanayo walwal qalaqaasi marka nafsiyan oo psychological damage ku gaarsiinaya looma baahna. adiga calm down isdaji. imtixaanku waxa aad dhigatay waxaan ahayn marka imaanayo, laakiin kaliya waxa ka fikirtaa sideen u diyaar garoobaa, sideen wax u bartaa maahane ha ka fikirin imtixaanku maahan cadaab loo socdo, laakiin waa wax yar oo ku saabsan wixii aad soo dhigatay oo iyo buugaagtii aad wax ka soo dhigatay laga keenayo oo si fududna looga keenayo waliba oo cabiraysa heerka guud oo ardada ayadoo la ilaalinayo individual differences ama al-furuq al-fardiya ardada Soomaaliyeed. imtixaanka looma diyaariyo kaliya dadka maskaxda sare leh, laakiin waxa loo diyaariyaa dad isku jir ah, inclusive. marka ha cabsanin, waxba ha cabsanin, wax walwalaha isku furin, kaliya qorshe samayso balaan aad wax ku akhrinayso adiga oo raacayo xeeladahan aan ku sii doono. saddex ardadu waxay aqriyaan qaladaadka ardada ka dhaca Soomaaliyeed waxa kamid ah xilliga imtixaanka ay 15 biri ama bil ka dhiman tahay ay wax akhris bilaabaan, inta ka horeysa waxba ma akhriyaan. taasna waa qaladka ugu weyn oo dhibaatada keena. ardada waxa laga rabaa at the time aad form 4 gashaba in aad samaysato reading timetable wax la yiraahdo, jadwal qiraa'a inaad samaysato. chapter kasta oo buugga aad ka gudubtoba in aad akhriso, fahamto, summary aad ka samayso. waa arki doonaa xeelada akhrinta markaan ka hadlayno. marka ka samayso hadhowda adoo diyaarsan oo qiraa'a awliya ama pre-reading lahaa ayaa waxa imaanaya timekii imtixaanka. markuu yimaado waaba diyaarsantahay adiga, waxaad ka walwashaa meesha ma yaalaan. xaqiiqatan kaalinta koowaad aad galay haddii aad laba gelin, waa haddii aad raacdo nidaamkaas aan ku siino. qodobka afraad oo waxyaabaha ka dhaca kamid ah ardadu waxay xoog saaraan already prepared questions and answers. su'aalo hore loo sii diyaariyay. waxaan ognahay suuqyada waxa yaala su'aalo iyo jawaabo diyaarsan maada kasta. su'aalahaas iyo jawaabahaas diyaarsani kama wada imaan dad khubaro ah, qaarkood arda diyaariyay, qaarkood dad aan nidaamka imtixaanka fahamsanayna diyaariyay, qaarkood waxa laga yaabaa inay dhexdhexaad iska yihiin. marka adiga su'aalahaas iyo jawaabahaas kaliya focus ka saartay, waqtigaaga intii ugu badneed ay saa ku bixisay. hadhowdiina imtixaanku qaabkan oo bihada shakli ma u imaanayo, qaab casriyeysan oo nidaam lahu u imaanaya. adigana i'tamadta ala hadhihi al-as'ila wal ajwaba faqat biduni qiraa'a biduni ay shay aakhar. taas marka maxay ku keeni kartaa in aad hadii bari loo socday adna aad waqooyi aado hadhowdiina aad adiga imtixaanka kala luntaan. su'aaluhu waa sax, waa helbin, waa musaacid, way ku saacidayaan, laakiin kaligood ha ku tashanin. tan kale qaabka ay su'aalahan u samaysan yihiin laysa min ad-daruri in imtixaanku qaabkaas ku yimaado. waxa laga yaabaa hadii su'aashii ay calil u samaysnayd in si kale lagu keeno adiga iyadoo isla su'aashii ah, adigana tiya kugu programsan. marka taas waxay ku keeni kartaa al-i'timaadiyya wax la yiraahdo ama reliability, in wax aan sax ahayn inaad i'timaado isku hadlayso. sidaas darteed marka aad wax diyaarinayso 80% waa inaad buugaagta wax ka diyaarisaa oo aadan xoog saarin su'aalaha iyo jawaabaha diyaarsan. kuwaas
مساعدة كالميسي وأو استعمال كرتا لكن ما أهن تلابتي ودم بيسي ما أهن هذا مركا mistakes done by students inta aan ka aragnay oo ardadu ay sameeyaan ardadu hadii intaas ay marka iska xaliyaan ayadaaba furay waxay u noqon kartaa in aad wada sax qaado okay qodobka xiga ayaan u gudbi doonaa oo aha what is necessary to win in the exam kana in generally waxaan sheegi doonaa main points that is necessary to win in the exam qodobo waaweyn oo ay tahay inaad iltizaamto ama aad ku dhaganaato si aad ugu guuleysato imtixaanka maxay yihiin waa laga yaabaa inaad aad u sugi laadaha qaybtaas isweydiinayso waxaa la yiraahdaa ko memorizing horta يجب an tahfad waxaa la yiraahdaa al-ilmu fi as-sudur la fi as-sudur waa qaacido tani marka dugsiga hoose ee darbiga iskuulada kugu qorneed laakiin maxaa ka fahamtay qaacidadaas waa inaad wax ka fahamtay waxay cilmigu ma ahan wax buug lagu wado maalinta imtixaanka cilmigi buuga ku jiray waxba kuma galo laakiin wax ku gala cilmiga inta kugu jira xabadka fi sudur la fi sudur لكن العلم اللي هو مكتوب في كتابك وتركته في بيتك ما ينفعك في يوم الامتحان لازم مركا أن تحفظ أساسيات ما يجب حفظه هذا برنامج امتحانك قيبة حفظية أخذوا عيان قيبة وحي أخذوا عيان فهم قيبة وتحليل قيبة وتطبيق وحي حفظ سلقا مارمان مركا وأنا حفظ صح واستيب مهم حفظ كمركا مادوين كتن مالنت امتحانك سود وهذا ما حفظ كرتا ومايا وأنا جدول القراءة وكسب باللوضة مالنت أفنفر صوب باللوضة إلى هذا وأنا دهيستا سيدنا توبركان وحا مهم ويهيبا maalmaha imtixaanku soo dhawaado tababarkan muhiim maahan wuxuu muhiim yahay maalinta afanfor bilaabayso inaad tababarkan qaadato oo aad ku cilcishato ilaa aad imtixaanka galayso maalin walba aad isku dabaqdo okay qodobka labaad oo laga rabo inaad samayso waa continuous reading waa horaan uga hadal qiraa'o socota al-qiraa'o al-mustamira qiraa'o maalinta imtixaanka kaliya ama asbuuca imtixaanka bis la yanfac wax ma anfacayso taas saddexaad deep understanding waa akhrisay wixii mana fahamsanid fahma la rabaa laana imtixaanka waxa ku jirta qayb fahma waxa laga yaabaa adeena adoon fahmin wixii aad iska xifdiso hadhowdina imtixaankii qaab fahma uu ku yimaado kayfa tahul al-as'ila su'aalaha sida waxa lina mushkilo waa making analysis on the lessons waxa taxliil inaad ku samayso casharada laana maxaan saas u leenahay imtixaanka waxa ku jirta qayb analysis وتحليل كل سنة سيدان مرك 10 تحليل ugu sameeyaa waxaan ugu sameeynayaa ciwaanka 10 kan iyo xogta ka hooseysa oo ciwaankaas raacsan ayaan waxaan sameynayaa horta taxdiidu عناصر الموضوع موضوعا العناصر الأساسية oo ku jirta maxay tahay موضوع aad u dhaxgal qor 1 2 3 4 هذا الموضوع لا يخرج عن هذه الدائرة مرك دائرة داس أفرتاس قضب مكا بحايو هدنا اسكو ضي عناصر تاس جزيئات كذي إنا تسي سميسو هدنا بعد ذلك واحد أغانيسا مركم وتحليل الشيء وتفكيك جزئياته واستنتاج يعني حقائق علمية منه شيء أنا وحكسوا صاري كرتو أديه كرتو وحاسي لقى فهمه تحليلك وحكمل إنا أدرسي كرتو موضوعا ميقى السؤال هذا كإما كرتا سؤالها كإما كرا محييهين أنا أناليسيس كو سماي كرتو وأدرسي كرتو that's a good point سيدوك لا improve your language المشكلة الأساسية لدينا في الطلبة الصوماليين محيطة واللغة حمو بور language هو hadhow dii arday waxa arkaysaa dugsi sare ka baxay oo Carabi ama English ama Soomaali markii tacbiir yar loo keeno aan waxba qori karin jawaabihi su'aasha uu bixiyay kala bar waxa looga qaldaa luqad xumo laana luqadda uu ku qoraayo luqad la fahmaayo macalinka sax ah uu fahmaayo ma hadhow dii maxaa dhacay marka waxa la fahmayna daa qorto jawaab bundacna iska makaasi karto marka ardada waxa laga rabaa dugsiga sare ku jirta gaar ahaan sanadka aad fanfoorka ku jirto to strengthen your language luqadaada inaad xoojiso hal sano aad ku jirta fanfoor ku dhawaad hal sano luqadna lagu bartaa hal sano adiga waxaaba ku bilaaban marka halkaas sano inaad isdhistaa oo aad tacbiirkii iyo luqadii isticmaalkeedii aad ku tababarataa waa is very important okay co-reading or discussion in groups waxyaabaha ka rabo muhiimka waxa kamid farkali fool ma dhaqdaa leeyahay
camalkan camal tacaawuniya waa ardada form 4ka waxaa laga rabaa in ay wax isla akhriyaan ama waxa la yiraahdo group discussion inay sameystaan oo casharada qaar isla taxliiliyaan isla su'aalo iska weydiiyaan ka doodaan ka sheekeeyaan markaas maxaa suuro gelayo maskaxdii kala duwaneed inay hal meel isugu imaato nuxur fiican oo ka soo baxo laakiin hadda kaliya qol isku la xirto waxa laga yaabaa xataa macluumaadka qaar si qaldan in aad u qaadato adigu wax ka qabtana aad helin laakiin marka discussion la sameeyo maskaxa kala duwan ayaa isu imaanayo wax kala duwan oo nuxur leh ayaa la aruurinayaa waxa loo shaqeynayaa sidii shinnida kale shinnidu meel kasta waxbay ka soo qaadaa ubaxyada kala duwan markaas waxay soo saartaa wax ugu macaan marka aad group discussion sameeyso waxa maskaxa kala duwan waxa laga keenay wax ugu fiican ka soo baxayo and reading what is related to the subject okay maadadan waa chemistry tusaale waa biology waa carabi waa tarbiya ma waxaad iltizaamaysaa kaliya buugga maya waxaa laga rabaa wax alla wixii mawduucyadaas mawduuc markaad diyaarinayso mawduuca buuggan ku yaala marka akhriso oo isticaabto inaad mawduucan buugaa kale ka akhriso ama what related to this subject maadadaas wixii kale la xiriira oo hadhowdii khibradaada kor u qaadaya waxa laga yaabaa mawduucan buugga kale waxa ka akhrisay in aad imtixaanka hadhowda uga badbaado taasna waa israac waxa la yiraahdo ama enrichment oo aad aqoontaada ku sameynayso naaxin ama waasicin tawsica u sameynayso waxa kale ugu dambeeya oo aan galeynaa objective reading qiraa'adaadu yeysan noqon wax iska akhri laakiin ha noqoto alqiraa'a alhaadifa maanta maxaan akhrinayaa akhriska maanta aan sameynayo how many objectives I want to ensure meeqa objective aan rabaa inaan xaqiijiyo in aan dhameeyo waa in aad isweydiisaa laakiin qiraa'a iska akhriya macno ma sameynayso maanta waxbaan akhrinayaa laakiin objectiveska aan qiraa'adan ka leeyahay maxay tahay waa inay ku caddahay marka wax akhrinayso laakiin qiraa'a biduuni hadaf das mudalaca tasafux ma fi faa'iida this marka waa main points ama general main points oo ah waxyaaba aad sameynayso waxaa marka isweydiinaynaa kuwan wax in la akhriyo wax in la xifdiyo ayaa ku jirtay waxaa imaanaysa marka sideen wax u akhriyaa sideen wax u xifdiyaa sideen wax u fahmaa su'aalahaas imaanayo qaybta dambe marka waxa ka qaybaheena dambe marka su'aalahaas ay ka jawaabi doonaan nala soco meeshan fiiri waxa la yiraahdaa four main actions aan sheegayno bilowga hore ku soo sheegnay waa afartii qaybood oo waaweyneed maxay yihiin understand horta waa inaad wax fahamtaa hadaad wax fahmin waxba macna ma sameynaysid reading sida u kala horeeyeen qasab maahan readingka understandingka haye memorize ka bacdina markii aad wax fahamto wax akhriso wax fahamto maxaa imaanayo inaad wax xifdiso haddana sideen wax u xifdiyaa waqtigii walba wax ma la xifdi karaa ayadana tusaale these four main actions marka ayaan qaybtaana uga hadli doonaa oo aan ku sii doonaa xogteeda mid mid ula soco waxaan ka bilaabaynaa how to understand the lesson markaan leenahay the subject consists of more lessons cashar aadna u fahmi doontaa buugga maadada dhan hal mar ma fahmi doontid laakiin cashar after that cashar kale ayaad u fahmi doontaa ka bacdina waxaaga waa isu geysan doontaa okay how to understand the lesson marka horta cashar markaan rabo inaan fahmo sidee wax lagu fahmaa what are the steps maxaa waa tilaabooyinka laga rabo inaan maro tilaabooyinkan marka maalinta imtixaanka wax ma fahmaysid waa process isku xiran fasalka ilaa maalinta aad imtixaanka galayso maalinta fasalka aad cashar ku qaadanayso oo macallinku kuu dhigayo ilaa maalinta aad imtixaanka galayso process isku xiran waa amaliya mustamira laakiin wahal one day Rome wasn't built in one day la shambiri Soomaalidu dhahdaa sheekh lagu ma noqdo shambiri sheekh lagu ma noqdo yaani shambiri oo imtixaan ka horeysaan isguba maskaxdaada gubaysaa oo isdaalinaysaa maana waxba ma fahmaysid waxna ma baranaysid laakiin nidaamka laga rabaa muxuu yahay horta good listening to explanation of the teacher fahamka waxa asaas uu ka soo bilowdaa boqolkiiba 60 boqolkiiba 70 maadada ama mawduuca waa inaad ka fahamtaa macallinka inta aad fasalka ku jirto haddii markii fasalka aad joogtay aad social media ku mashquulsaneed ama aad macallinka qashqashaadaysay oo wax dhageysanaynin hadda waxa way adeeg ka go'an tahay hadhowdii adigana hadhowdii taas adeeg ka go'an tahay marka stay attention markaad joogto fasalka
waa inaad si fiican wax u dhageysataa good listener waa inaad noqotaa waa fasalkeen joognaa markaas maadada halkaas ka soo bilaabataa maxaa xiga markaan fasalka ka soo baxo casharkii si fiican waa u dhageystay dabadeed 60% ama 70% ama percentage fiican ayaan ka fahmay okay maxaa ii xiga si aan inta dhiman u fahmo inta aan fasalka ku soo fahmana ay iga fakan maxaa ii dhiman waxa iigu xiga focused reading of the lessons waxa la yiraahdaa qiraa'o murakkaza qiraa'o xoogga la saarayo concentrated oo xoogga la saarayo waa inaad samaysaa oo maxaa laga wadaa qiraa'o murakkaza أن تركز على الموضوع الذي تريد فهمه وتكرر 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 حتى تفهم بدقة وكل نساء إلى 6 فترة accurate understanding أدهشه لكن ننك الرباء إنه فصل كمركز وتقب وقت إسكت ورا قلبتين بنوني هذا السوشيال ميديا إسكت قالوا مالنت امتحان كيرا والامتحان كورت قرنا اللي يرهرتا وضدك دعاء أركتين أو اللي هذا كون شنت كونه كواس واحد يا كواس كمل نغن مرك سدح discuss the lessons with your classmates وهذا مدان سو sheegnay kaliga wax ma fahmi kartid fahamka marka la yiraahdo sida aad u fahamtay sax ma tahay waa inaad waxa isku dhiriso ama waxa ka sax waa inaad heshaa waxa laga yaabaa adigu qolaa isku xirtay waxa tira casharkii waa fahmay laakiin sida u fahamtay saxiix wala la kayf sidee ku ogaanay asxaabtaadii la discuss garay la shaqay waan aniga saasan u fahmay ma wada qaldan aan qaaday mise waa sax baashu saan u fahmay ma tahay waa group taawunkii waa تعاونكنا وفائده sidoo kale waxyaaba takhayul waa inaad imagination waa inaad samaysataa waa mid aad dhahayna taxliilkii what the main components of this lesson casharkan mukawinaadkiisa waxyaabaha laga rabo casharkan maxay yihiin waa inaad fahamtaa mukuwada casharkan waxyaabaha uu ka kooban yahay canaasirtiisa hadaad fahamsanayn su'aaluhu meelay ka imaan doonaan ma takhayuli kartid ma fahmi kartid marka takhayul محتويات الدرس أما مكونات الدرس 10 كان وحي وككوبنا هرت سي إيماجين جري هدودي waxaa laga yaabaa su'aalihi maskaxdaada ku wareegaya ama meelihi aad target gareynayay naftoodii inay su'aashu ka timaado wayna u badan tahay shan marka wax la fahmayo qaabka wax loo akhriyo shayga aad rabto inaad fahmayso waxa loo akhriyaa waxa la yiraahdo clandestine reading ama waxa la yiraahdo qiraa'o sirriya marka aad rabto mawduucan waa soo akhriso isku laakiin waxa rabtaa an tafham mutahaddida juz'iyatihi hatta yatarasakh fi dhihnik ila maskaxdaada uu ku sugnaada rabtaa sidii lisa hal taqra qiraa'o jahriya la qiraa'o sirriya akhrinaysa waxa akhrinaysa qiraa'o sirriya waadix marka sheekadaas haddaan intaan tijaabino wax badan ayaad ogaa doontaan laakiin yaa tijaabi kara markaad tijaabiso ka bacdi natiijada ku soo baxdo imtixaanka laga soo baxo oo aad markaad guuleysato qaamuus academy la soo xiriir markaas ka bacdi oo natiijada u sheeg okay waxa la rabaa in war kaliya iska noqon waxa la rabaa inaad u bedesho action waa lagu sheegay hadda laakiin waa dhageysato waa ka socotay waxa ma tarayso waxa la rabaa inaad dabaqdo an tudabiq hadhihi albunud alkhams fi hayatika alilmiya okay aan soconno qodobkii xigay oo four main actions wuxuu ahaa reading hay sidoo wax akhrinaa su'aal taagan waa hay marka akhrinayo maxaan sameeynaa xogaa maanta laba sadar ma akhrinaa miskitiga cabaaran dusha inta ka dareeriyo 10 miyaan iska soconayaa sidoo wax akhrinayaa this will answer this question ka jawaabi doonta marka slide kana kaaga jawaabi doona fiiri waxaan meeshan ku soo qornay ilaa 7 qodob 7daas qodob haddii aad dabaqdo oo aad dhaqan geliso waxaad heli doontaa natiijo fiican tips of reading tips waa xeeladaha ama kaartooyinka wax akhrinta qaabka wax loo akhriyo maxay tahay marka targeting the main points of the lesson istihdaaf النقاط الأساسية للدرس عشر والبا وحو ليها وحيابا explanation oo mawsuuca ah oo cilmi badan oo isaga dhexdaadsan oo war badan ah oo in wax lagu tafsiiliyo loogu tala galay iyo waxyaabo nuxur ah ama main points 10ka horta marka hore qiraa'ada koowaad waa an tastahdif النقاط الأساسية للدرس 10kaaga qaybaha asaasiga waa inaad horta aad beegsataa labo marka aad beegsanaysa qaybahaasi waa in aad fiirisaa in ay ku xiran yihiin ahdaafta 10ka
waayo hadhowdii examku inta badan ahdaaftu ka soo ishtiqaaqi doonaa ayaa laga keeni doonaa waxa la qiimeynaya waa objectives ka 10 soo maahan الامتحان سوف يكون مبنيا على أساس الأهداف نصيب هناك بوقتي إن الدكتور سر دمانتود أهدافتي وكو قرنتها مركا waxa aad diyaarinayso oo aad xifdinayso oo aad fahmayso hal laha علاقة بأهداف الدرس أم لا haddii aad ogaato inaysa أهداف الدرس xiriir la lahayn ogaa wadaqa jacaha ku socotaa marka mar walba waxa aad xifdinayso you have to try inaad hubiso in ay relevance ku yihiin أهدافta am la okay reading outlines of every subject waxa la yiraahdaa outline ama mulakhas ama tawsiif caam ah oo laga bixiyay maada kasta ayaa jirto waa inaad akhrisaa laana waxay ku soo dhaweynaysaa waxay ku soo aruurinaysaa scope-kii maadada scope ay leedahay scope-ka xuduudkii haddii xuduudku kula ballaarto waxa waa ku wareeraysaa outline-ku marka muxuu ku siinayaa yudayiq al-hudud wa yuhaddid al-hudud xuduudka ayuu ku soo koobayaa bacda daaka xuduudkaas ku dhex meeraysanaysaa wax ku diyaarinaysaa okay clandestine reading وقراءة سرية مرة قراءة جهرية لو باهية وأتجد دونا ميل كلي نوجلسها لكن مركا وآخرنا أو كلجا آتهاي قراءة سرية لا تتعب نفسك okay making timetable of reading قضبك أفراد وحويان إن أتسميستو جدول القراءة هذا جدول القراءة لهين قراءة هذا عشوائي إسكن قدون تا وحان جدول لهين أو بلان لهين مهر قلان وقف اسكب بحيساك وير مقالة هذا ميل وصعدنا عن أغوانا وكلاته وهدف لهين sidoo kale waa inaad abuurtaa wax la yiraahdo create distraction free reading environment bio ka maran ama ka madax banaan waxyaabaha la yiraahdo duuflaaliska ama qofka inay marin habaabiyaan oo wax jeediyaasha qofka inay ku jeediyaan oo ku mashquuliyaan biyaan lahayn sida social media television inta kugu dhagan waxa waaye musalsala fiirsalaheed dad badan oo kala meeshan jooga waxaas meel ah waxba lagu akhri karo environment oo khaalin min al muawiqat wa min al mushghilat waxba ku mashquulina waa inaad samaysataa wax ku akhrisataa tamam qodobka lixaad control your social media habit وحل يرى هذا في العالم اللي نعيش فيه غلب على الشباب ما يسمى وسائل التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا كأتك هذا اللي يرى هذا وأنا دمرك كنترول أسميسها السوشيال ميديا هابت نقن كاجا مع عدد هذا السوشيال ميديا هاد مركان وأنا كنترول شاه سنة كان حقائق سعدت لكن مرة بهذا موبايل كسكسوق فيسبوك تصفح سميسو ما أنا ما أنت نروح أسبوع لازوجلها aad ku mashquusho waxyaabo kale taasna waa inaad iska kontrooshaa qodobka toddobaad waxa la yiraahdaa comprehensive reading and summarizing every chapter waxa la yiraahdaa al-qiraa'a al-isti'aabiyya comprehensive ma laga wadaa isti'aab qiraa'o oo shaygan aad fahmayso faham sare oo aad maskaxda ku soo aruurinayso kabacdina inaad summarizing ku samayso every chapter kana soo akhrisay waad dhamaysay marka dhamayso ka gudbin you have to summarize this chapter this main points of this chapter wa ana qortaa xifdisa kabacdina okay these 7 marka steps hadaad qaado natiijadu mid wanaagsan ay noqon doontaa hadii ay noqon weyso ama application ka qaldan ama meel kale laga haystaa okay taas ka soo tag qodobkii saddexaad aan tagna hadana oo four main actions kan wali ku jirna oo ah how to memorize your lessons 10 sida u xifdinay kayfa tahfad duruusak waxaan niri waxa asaasi ka ah waxyaabihii what's necessary to win in the exam waxa ku jiray memorizing inaan wax xifdiyo laakiin isla markiiba waxaad i weydiinaysay sideen wax u xifdiyaa waatana dhigta indhaha fur okay waxa lagu yiri step-ka koowaad choose a quiet place horta meel degan يعني اختر مكانا هادئا ميل جو دقن او حالة دقن اد كجرتو دوره هرتا مركا اضربتنا وحفظيسو واستيبك كواد انت آذن وحفظ سودين ميل دقن او انبوق لهين او مشغلات لهين او معوقات لهين او وحيابك لو استريس كجلنا ان لهين دوره تمام ديتنا محا سمينيسا لباد and divide what you want to memorize into the smaller parties موضوع دونيسو هل كان جبتر وهل مر اما دفع واحد ما كو حفظي كرتid maxaa laga rabaa موضوعan waxa u jajabisa qaybo yar yar qayb u xifdi marka qaybtan koowaad marka xifdiso soco
qaybta kale markaa xifdiso soco qaybta kale sidoo kale jabtarka dhan markaa xifdisana summarize ka sii xifdi haddana inta kalena hadhowdii mudaalaco iyo akhris ku wad okay waxaa laga rabaa markaan sheekadu tii hore waxaan soo arkaynay clandestine reading hadda laakiin read loudly iqra jahran marka wax xifdinayso kaligaa meel joogtaa ilaa xad waa inaad codka dheeraysaa oo ismaqashiisaa laanno hadhowdii acsaabtaada markii codka aad maqasho iyo markaa hoos u akhriso isku sima ula tafaaculayaan saddex write down the key points for each lesson waa inaad qortaa oo soo summarize garaysaa pointi kasta oo casharkan ku jira casharkan markaa akhrinayso inaad fahamta rabto faqrada koowaad pointiga ku jira qor xifdi faqrada labaad marka ka boodin faqrada labaad pointiga ku jira qor faqrada saddexaad pointi nuxuraha ku jira qor saasa wax ku xifdinaysaa okay markaad saas u qorto memorize each point kastana xifdi ha ka gudbin afar read what you have memorized to someone or yourself yani isu dhageyso meesha af Soomaali ka dhahno waa wixii aad xifdisay qof kale ku dul akhri ama adigu isu dhageyso oo inta buug iska laabtid isku dul akhri adigu isu dhageyso okay shanaad maxaan rabnaa waxaad qaadanaysaa break after each short period la tutcib nafsak naftaada hadaalinin wala turhiqa بعد قراءتك وعندما تحفظ يعني صفحات أو عدة مواضيع أساسية استريح شوية عبار نصو مركان نصو ريلاكسي سو قادته هذا نكو سو لابو لكن هذا هالمر اسدشو وحواي النفط هذا ريلاكسي مهليسو اوكي stay away from stereotypes waxa la yiraahdaa activators dadka qaar markay rabaan inay aad wax u diyaariyaan wax xifdiyaan wax isticmaalaan waxa la yiraahdaa activatorska ama waxa la yiraahdaa munashidaadka af Carabiga af Soomaali maxay noqonayaan waxyaabo qofka kiciya adiga xoogaa awood siinaya sida kafaa inuu cabo kale iyo waxyaabo cabitaano xoogaa qofka awood firfircooni siinaya inuu cabo iyo daroogo inuu isticmaalo iyo that's wrong taas qalad waa ha u dhawaanin hatta kafaa cabin normal situation wax ku xifdi adoo xaalad caadi ku jira wax ku xifdi marka lixdaas qodob waa steps-ka la marayo si wax loo xifdiyo hadii lixdaas qodob aad iltizaamto sawfa tahfad insha Allah ta'ala kull ma turiidu soo soco isla mawduuci xiriir la leeyahay kani what time is suitable for memorizing waqtigee ku habboon in wax la xifdiyo halkan fiiri marka dhowr qodob aan sheegno waa iska kooban tahaba laakiin shuruudo ay leedahay qaybkan waa in the last half of the night qaybta dambe ee habeenkii qaybta dambe ama rubaca dambe quarterka dambe oo wixii ka dambeeya labada laakiin bishardi maxaa ah if you sleep early qaybta dambe habeenkii soo kici kara qofku inuu xilli hore seexdaa عادة قفك 8 ساعات إنه جيفته 24 hours كأسك عادية لكن 6 ساعات إنه الوعي ريكرا مركز 2 ساعة بينما أما 9 عدد ساعته سجال سد حدا واقع كرتها سد حدا مركز كعضو وجو هادي هي وحواي ومركز حتى من يدعوني فاستجيب له فرصة هذا أتكفى إيدي ستو إلى إنه امتحان كوفو ذايو عاد ماشاس حتى كل دعي ستو وحنا واحد فدنا مسك هذا بس بلغي على المر ربنا نقنه هذا الريلاكس قبل اوكي تاسو قضب كلباد افتر نابن waxa la yiraahdaa qaylula xilliga duhurka waxa jirta xilli qaylula la yiraahdo hurdayra jakasiisay refreshment ay qaadatay marka soo kacdo you are very powerful to memorize aad awood u leedahay saa wax xifdiso awoodaas ka faa'iideysa marka xillidaas kalena waxa la xifdiyaa okay goorme wax la xifdiyaa kale after the morning prayer salaad subax ilaa 7 inta xilliga hore oo qoraxdu ay wax yar soo kacayso xilligaas qofka xalo dhan u jiifay acsaabtiisa waa haadi ah jawigiisu waa degan yahay xillidaas aad baa wax loo xifdi karaa waxa kale oo la xifdiyaa between sunset prayer and evening prayer waxa dhaan qorax markay salaada maqribka iyo cishaa inta u dhaxaysa waliba waxa fiican meel oo jawi degan masaajidka kale inaad iska tagto hadii gurigaaga aad helayso environment ku habboon waa okay xilliyadaas marka waa xilliyada wax la xifdiyo xilliya wax la xifdi karina jiraha isku dhibin xilli aad tacbaan tahay oo nervous exhaustion ama dal xagga maskaxda aad qabto ama problem kala qabto ama psychological problem uu ku hayo waxba ma xifdi kartid xilli jawigaagu degan yahay ana wax xifdisaa daas marka main point is to apply si aan wax xifdino qodobada ugu muhiimsan oo la ka rabo inaan dabaqno weeyaan si aan wax xifdino okay inta soo eeg marka
waxaan qaadanaynaa advices oo ah qodobkii ugu dambeeyay ee trainingkeena oo ah maxay yihiin talooyinka aan ku hayno si aad ugu guuleysato imtixaanka gaar ahaan xilliga imtixaanka at the time of the exam maxay yihiin talooyinka aan ku haynaa soo fiiri inta before the exam read the lessons well horta imtixaanka intaad u fariisan casharadaada soo akhri shaqadaadii hore waa soo qabsatay reading laakiin maalinta imtixaanka at the time of exam if you try to read and understand and fashil meeshaas fashila ka yimid xilliga imtixaanka ma wax aqrinay ma wax analyze garaynay ma wax fahmay maya waa horta shaqadaada soo qabso horta marka hore xilligan adoo raaxo ku jira inaad wax fiirfiiris bis inuu ku ahaado la rabaa xilliga imtixaanku laakiin sheekadaadu ay hore u soo dhamaatay okay stay away from tension alqalq وكفوا إنها كعسنا تو هذه الثوران عصابتها هذا دجي إسدجي حل امتحانك إسدجي ضدك غار أيوة ما دي سو أخري سو ديارية وحول بس فهم مركي هولك امتحانك اللي ماذا أي وحي بحيان خطك بحيان سببتم حيتاي ولا كنا لنا ولن ماشي واحد به مجالين امتحانك وأبسط شيء ووحي أسوأ نقطي ووحي أسوأ أخرسي ووحي أسوأ فهمتي ووحي أسوأ تحليلسي لكن هذا الشقة هو سوى قبسا وولي كرتاعتاس ما مشكلة have enough sleep the night before the exam habeenka imtixaanka ka horeeya subaxii imtixaan galaysa habeenkii oo dhan ha soo jeedin enough sleep qaado jawi degan qaado dadka qaar qaladaadkay galaan waxa kamid ah habeenkii oo dhan soo jeeda subaxii asoo daatadii dhan isaga dhex daadatay oo eber ah oo daalan oo wareersan oo hurda haysu tagaa imtixaanka hadhowdi marka remembering ama xasuusasho ma samay karo qofkaas laano waa daalan yahay mishinkiisu waa daalan yahay marka taasna laga fogaado afar waxaad doorataa appropriate food cunto waxaa jirta aan qofka daalinayn oo nafaqana leh oo maskaxda xoojinaysa sida caanihii fishkii egg hadda qofka aan haysanna Allah siiyo laakiin hadda daalo waxyaabo kale oo egg to kale waa raqiis waa la heli karaa cunto kale oo protein laha jirto cuntooyin kale jiri kara waxyaabo badan jiri kara oo qofku understand the exam questions before answering haku boodin warqadii lagu dhiibay hoolka soo fariisatay adoon su'aalaha dhan akhrin imtixaanka ku boodin haka jawaabin ardada qaar waxay sameeyaan su'aalihii ayagoon fahmin su'aasha ayagoon fahmin wax iska qiyaasa daas waa qalad weyn waa ha sameeynin waxaad ku bilowdaa start with easy questions ardada qaar su'aasha koowaad adag su'aasha koowaad iska dul istaaga oo ku dul fikiray waqtiga dhan ayad uga baxay waana ku daalay hayeelin horta su'aalaha fudud oo dhan daraf kasto ay ku jiraan ka soo shaqay marka ka soo shaqayso inta adag u soo noqo markaas ku dul fikir wixii aad fikir ku keeni karto finally check what you wrote before submitting the paper to invigilator waxa iska hubisaa waxa aad qortay ka hor intaada u dhiibin invigilatorka ama qofka waardiyaha ah oo imtixaanka ku waardiyay hoolka iska hubi again read again aqri check waxa qortay waxa laga yaabaa su'aalo ay qalad uga jawaabtay inaad isla markii soo xasuusato dabadeetana aad hesho kuwaas laftoodana aad ku baasto hadhowdii oo haddii kuwaas sidooda aad ku dhiibi lahayd aad dhici lahayd marka qaybahaas waa adviceska ugu dambeeya oo aan siinayno asxaabta oo rabta in ay ka qayb qaataan National Secondary Certificate Examination oo sanad walba dhaca waxaan filayaa marka qaybahaas in ay aad uga hesheen aanad ka faa'iidi doontaan wax badan haddii aad ku dabaqdaan inta aan tababar kale oo kan lamida ku kulmi doona ama ka duwan salaamu alaykum waanad ku mahadsantihiin la socodkiina